aqalka sare ee baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa cod aqlabiyada waxa uu kaga soo horjeestay doorashada la filayo inay ka dhacdo deegaanka Tigreega ee dalka Itoobiya Arbacada toddobaadkan waxaana golaha aqalka sare ay sheegeen in tallaabadaasi ay tahay mid ka hor imanaysa dastuurka dalka Itoobiya isla markaana aan sinaba loo aqbali karin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashadaasi golahan oo shalay shir degdeg ah ka yeeshay arrintan ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyada ka socda ismaamulka Tigreega uu sidoo kalena si toos ah uga hor imanayo xeerka iyo shuruucda u yaala Itoobiya ee dhinaca doorashooyinka sidoo kalena arrintan aanay dhaqagal noqon doonin sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen golahu sidoo kalena golaha aqalka sare ee Itoobiya ayaa warbixin ka dhageystay guddida joogtada ah ee macnaynta arrimaha dastuurka waxaana goluhu intaasi ku daray qaraarkooda inaan waqtigan loo baahnayn in go'aanka Tigreega darteed uu shacabka deegaanku dhibaato u muto sidoo kalena goluhu uu aaminsan yahay in wixii dhibaato iyo khilaafaad ee jira in lagu dhameeyo wada hadal iyo safgarasho golaha ayaa bayaankooda waxay intaasi ku dareen in aanu jirin hal qodob oo dastuurka Itoobiya ku jira oo awood buuxda u siinaya dowlad goboleedyada inay qabsan karaan doorashooyin ay kaligood isku abaabuleen balse taas beddelkeeda awoodda uu si cad u siinayo dastuurku guddida doorashooyinka heer qaran ee Itoobiya golaha federaalka Itoobiya waxa uu maamulka deegaanka Tigreega iyo xisbiga talada deegaankaasi haya ee TPLF uu ugu baaqay inay joojiyaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo gaboodfalada ay u geysanayaan shacabka deegaankaasi ee la xiriira doorashada deegaanka ee uu qorsheynayo inuu si gooni ah u qabsado doorashada guud ee dalka Itoobiya ka dhici lahayd bisha September ayaa dib loo dhigay kadib markii ay labada gole cod aqlabiyada ku meel mariyeen in doorashada dib loo dhigo muddo 9 bilood ilaa sanad ah sabab la xiriira xaaladda adag ee dalku uu waajahayo awgeed laakiinse deegaanka Tigreega ayaa markiiba ka soo horjeestay go'aankaasi kuna tilmaamay inuu yahay go'aan dastuurka ka hor imanaya iyaguna ay doorasho u gooniya ay qabsan doonaan sida uu qorsheynayo deegaanka Tigreegu doorashada u gaarka ayaa waxay dhici doontaa Arbacada toddobaadkan ee 9 bisha September Cabdifataax Xareed codka bariga Afrika hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom